asalaamu calaykum dumar intaa lasoo shaqeeyey intooda ugu badan sokortu waxay cunaan ama uu jirkooda qabtaa duhurkii wixii ka dambeeya habeenkii sagaalka sac muxuu ahay galabnimo waqtiyada ugu daran way kuwid gareeyaan maalmay ka haraan waxay la soo laabtaan dopamine ka waalan kii hore oo keenaya sokorta ay cuni jireen in ka badan inay cunaan hataa marxaladaada ku jirto videoga dhamayso arrinkanu ma aha daciifnimo adiga kugu sugan aamin waa biological trap waa dabool sida adigu yani jirkaaga aad u nooshahay oo u shaqeeyo trapkan waxa kugu wado ama arrinkan waxa kugu soo riixayo dopamine-ka oo maskaxda ka socdo iyo insulinkaaga mar walba oo aad sokor cunto u fiirso maskaxdaada dopamine ay soo deynaysaa way ku abaalmarinaysaa macaankaas waa dareemaysaa goosahaad ka dhididaysaa laakiin markii ay sokortu dhammaato xoogaa aad joogto insulinkaa soo kacayo maskaxdii la hadlaa wuxuu leeyahay qofkan sokortiisa way dhacday sokor ha la soo cuno haddana maskaxdu waxay ku amraysaa sokor aa cunaysaa haddana dopamine lasoo diraa fiiri adigoo dhan waxaad ku jirtaa roller coaster ama cycle oo dopamine-kaaga iyo insulinkaagu aad u dhaxayso si marka wareegan aad u jabiso oo aad uga guulaysato sokorta si degdeg ah ha u joojinin hal maalin inaad hurdada ka soo kacdo sokor dambe ma cunaayo ha dhihin badalkeeda laba shay xooga saar borotiinka aad cunaysidna kor u qaad faadka aad cunaysidna kor u qaad labadaasoo isbiirsadaa waxay keenayaan dharagtu inay badato taasna waxaa ka dhalanayso sokorta cravinka badan aad u hayso inuu meesha ka baxo especially suuxi markaad soo kacdo quraacda aad cunaysidaa ugu muhiimsan bal commentiga nagula wadaag haddii aad rabto sokorta wax aad ku bedelato inaan kuu soo sameeyo si sokorta dhan aad uga dhex baxdo asalaamu calaykum